اوكي كرامه اهلكيسا qodobka tobanaad oo ah qodobka ugu dambeeya 10kii qodob ee aan ku hananaynay ragga karaame ehelkiisa see ku karaameyn karnaa qofkan ina dhahdo maanta waxa u baahanahay hooyo aaba inay ii imaadaan oo ay maxay ahayday qada aan u karino jimcada soo socoto asaga adoon ka imaanin wax qarashana xabiibi adiga ha ii dhiibin aniga aan dabaraay waa wax wanaaga soo maahan لأن أديك هوايدا مركي كوي مانيسو مانك هوايدا كوسو صعتو غوريغا waa laga dareemaya asaga hooyadii waa hooyada ayo kale qof aad jeceshahay oo raqabaadkaaga iyo baahida aad qabtay ku dhameystiray ee ba dhashay maxaa u xumeeyay oo ceyrine oo hooyada uga jeclaanay hooyada way ku dhashay ayadana xaq ku leedahay asagana hooyadana xaq ku leedahay لأن zawjkaaga hooyadiis waa hooyada soo maahan inaad karaamayso ehelkiisa dhan walaashiis aadan colaysanin maxaan anaga guriyeen Soomaalida dumaashi ma fiicnaan dhahnaa la waxaas waa fikir xun waa fikir aan qurux badnayn waa inaan iska saarnaa walaashaayo kale tawaay walaashaana sirtii u sheeganay walaashiisna waxa u bixinaysaa magac dumaashi waa leedahay markay soo socoto waa aamuse hooyadii markay soo socoto duqdi xumeeyda soo socoto nooha leedahay waa khalad maxay keenay ma badii laana hooyadaayo kale tawaay hooyada markay soo socoto ay imaato waxa u buuxinaysaa bac waa qurxinaysaa hooyada ay faraxsan ay rid ka bixis hooyadii markay imaatana qolka oo maxay stoorku kugu jiro cuntada waa soo xiray waxa ku yaal kaliya siina u ark maada shaqaystay maada shaqaysanin wiilkeeda soo dhidido keenaysa uga soo xiranay hooyada bacdaasiisa in la agsi farxad dareensi qadada hooyada u karinaysa waliba hooyada ayaa kalsoon ku qabtay qada ka qurux badan oo ka fiican u kari hadiyad waa inaan siisaa ay kugu kasbataa qalbigeeda laana waa waalid adooba ninkaanay dhashay kaliya aan u xiriirinaynin waalid ahaan u xiriiri laana waxay ku dhashay badib la'aan soo maahan inaadan colaysanin hooyadiis walaashiis aabi inta idil ay ku sinaadaan hooyada iyo hooyadii walaasha iyo walaashi aabaha iyo aabihi laana kulligood waa wada ehel adiga fiiri qow isweydii oo kaliya ninkan aasaas u jeceshahay ilmahaaga aabahood ah miyu imaan lahaa ma dhalan lahaa hadaynan maamadan dhali lahayn maya ha u bixinin magac xun ha ku dhihin habartii hebleyda soo socoto hooyadaan hooyo macaan tahadiin subax marka hooyada wacda salaan iyadana bariid hooyo seetan barideen hadiidaan isla nooleen okay miskoognaay waxyaabaha gabdhaheena inta badan la sheegay inay guryaha dumiyeen oo la dhaho waa waalidka la dhahaa ma aha waalidka been waay waxaas qalbiga ka dhaadhicinay hooyada gurigaaga adii ma ka duminay way jirtaa qof dabci xun oo ilaahay dabci uu siiyo way dhici kartaa laakiin adiga waa lagu dhawlay tawaadu cusub adiga maanta hadaa xumaato hooyada ma ku tuuri kartaa aniga hadaan ilmo dhalo aniga ilmaha aan dhalay maanta si walba duu xiyamay ma kala har karnaani asaga kamithli hada sidaas oo kale la ka soo qaad hadaad ayada ay xun tahay aaminsano inaan kala hareynin laana awlaadaada hooyadood waayo awlaadaada ayadood sina ma kaaga hareyso waxa la rabaa si kasta u xun tahay adiga yar adiga xaq lagu leeyahay adiga waalidnimadii ee waladkii ah ina ixtiraamto waalidnimada xaqiisi haday xun tahay xataa adiga wado ina xumaanayso qofkan uu dabci kulul yeelan karo ama dumaashida ha ahaato ama sadohda ha ahaato waa wax jiri kara laakiin adiga waxa lagu diidan yahay inaad gurigaaga u dumiso oo aad ka tira badbadiso oo dhahdo waa sidan habartaan aan guriga uga noolaan karin hooyadiis leenaba ka noolaan karin waa khalad waxaas ma jirto hooyadaaba waa ka noolaanaysaa hooyadiis waxay kugu beenaysa malahan laakiin nafsadeena aaminsan waxaas marka hore taada iska dhaadhiciso marna wax dhiba kaaga ma iimaanayo